عاور و dictionary oo qaybaha kala duwan oo afka maayo oo looga hadlayo iyo khudaarta iyo maxaa la dhahaa cuntada iyo shayada afka maayo looga hadlayo iyo ficilada intaba waa arkay dadka ku hadlaan luqadan dadka ku hadlo waxa loo baahan yahay gaar ahaan dadka wax bartay inay soo saaraan buugaag ay ku hadlaan jiilka mustaqbalka ay soo socdaan anaga waxaan leenahay diaspora wax la dhaho diasporahan waa dadka ku barbaareen dibadda ma haystaan meelay buugaagta ay ku akhriyaan afka maayga sidaas darteed marka waxaa loo baahan yahay in la soo saaro afka maayga soomaalida badi wax bay way hadashaa ee wax ma qorto taariikh ma direes afka maxaatiriga ku batay in wax la qoro buugaag la qoro taariikh la soo saaro عاو أنا وح كهاد لا يافك محاضرية لكن ما يهاد إن بدله ما دام أفك ماجي أو يستوى كسابو بوك لصوبان ديا وسنة بوك ماي والبا فضاني ضدك كور ماو أفك ماي إن إيون قرآن بوقت ماي مهم واي dantaani dalkaani deegaankaani dhalaankaani baa faa'iido weyn in ka jirtay intii afka maay la qoro ma yahaaytee mustaqbalkaani dareere walba fadnaa afka maay in la xoojiyo deegaanada la jeeyo dadka dibidoo ka dhaladayna in afka maay buugu qoran iyoon lin jeeyo afka maay diil iyo mirifle iyo jarir weyn iyo Soomaalida kala ku warmaas walba leen baahan afka in la qoro afka la xoojiyo dhalinyarada la siiyo buugaag maskaxda iyo fareesh la ka dhigo runtii walba halkan aad iyo aad in kama hadnaqo oo markii ka horeyte ditoreso muno mudey oo dalka Mareykanka ku koytay gabar karti badan aqoon leh sharaf leh احترام بدن قديات جرير وين meel dheer ugu fogtaa kaalin weyn ee ka qaadatay ilaa 20 sano dadka ay u halgameys waxaan idinku codsanaa dhalinyarada hal mar inaan muno muday for master's degree in law saabiyo hal mar muno muday saacad la siiyo way muno soo dhawow waxa waaye adduunyada markii oo reera hormaray markii la dhaho reerkaaseed waxa way qofkiis aqoonta loo ixtiraamaa that's why aadin leeyahay mun muddo loo saabiyo maanta way iga aqoon badan tahay ana siido aha aakhira way iga aqoon badan tahay waa qof karti badan leh dadaal leh libinti loo khiro qofka walaalkii oo ka aqoon badan ka sare ka wax karti badan hadoo u khiro asigin darajadaas wuu gaaraa I'm sure marka waxa loo baahan qofka ka sareeyay inuu respect gareeyo ixtiraamo walaashay muna soo dhawow magaalada Nairobi soo dhawow gabar karti badan aad tahay wax badan dadkan soo qabatay dhibaatooyin haday ku dhacdo anything wax walba ku qoraa ceelal hadii la faagay hadii wax barasho la siinaay hadii shirir la qawnaay hadii dad la dulmiyo dhinac walba u taagan tahay gabadha waxa la waa mar kale in sacabka loo celiyo codsiga ay tahay waxaan rabaa inaan soo gabagabay hadalkii waa ku dheeraaday aniga xaliya gudoomiyaha soo wacay saak waa soo wacay hadan waa soo wacay gudoomiye Jibriil buuga ina intii kooyta la koofadee kooy gudoomiye Jibriilow buuga qiimeeyay ama beesoodii halka buug ku fadhiin sheegtaa farne adoo raale si dhalinyarada in gadadaan anay injee dadka kale aad iyo aad mahadsantahay waa toorta sadwaaye badiyaan halkii buukan ku hooseeyana lacag 400 shilin Kenya money waa sid ahaan markii aad qaadadaas 3,000 nagaraas laakiin hadii tafaariiq qaadada dhalto 4,000 Kenya ka fadheere in sida 4,000 kulli Kenya ka fadheere fadan sid ahaan 7 buug hal mar qaado 3,000 Kenya shilin ma hadii aan awoodayna buuga in koori ama kii aad salaata ku qaado 400 shilin waa taa gudoomiye aad ay maasan tahay ani sadkii hadda farto oo saar
walaagayka kala baxaane hadda isii thank you aad iyo aad sacad baa la siiyo siyaasi maadaama uu noo hogaamiyey oo noo bilaabay si waad qaabilsan waxaan rajaynayaa siyaasiga one full set in loo diyaariyo